waxaan filayaa geeljirihii xalay inaad ka hesheen oo weliba aad aragteen qaabka iyo shaqada iyo weliba kala hufnaanta iyo kala dambaynta dhex taalla geela oo geel waxaad aragteen inuu leeyahay madaxweyne inuu leeyahay ra-iisul wasaare inuu leeyahay kusime agaasime qabanqaabiye wasaarado badan inuu geela ka kooban yahay aragteen dadkii geeljiraha ahaan jiray ama baadiye wax ka soo arkay way fahmayaan ciddaan fahmaynin ba halkan u fadhina inaan fahansiino waxaan kusii soconaynaa marka muuqaalka isaga ahaa iyo weliba reactionkiisii qaybihii haray ee dambe maadaama muuqaalka aad ka hesheen commentigiinana waxaad u baahan tihiin oo geelaas iyo waxaas quseeya kusoo qor haddaad geeljiro tahayna yani ahaan jirtay sideedoo kalena ha gabar banaanka iskeen eegada geeljirinimada wax lagu faano wey wax laga carara ma ah reer magaalnimada wax laga carara waryaa ilaahay warra gusay wax u wadaa soo maadan fahmin bal aragtida commenti nagula wadaago inakeen muuqaalkana sheerdha asxaabtaada la wadaag qof caana ma ku noolaan karaa maalinkii oo dhan wuu ku noolaan karaa aad buu u noolaa weliba oo caana geel bes gaajoon mahayo oomina mahayo hadda meeqa beri aadan cunto cunin saaka ee gashaha baan cabbi haye xalayna caanan cabbi hagaag shalay subax baan quraac quraacinkee ah yaan cunay quraacna dubay oo buradii bur oo tuulada ka cunto heer baan imaaday may heer geel halkan ku jiro oo geel intaan ka soo tegay yani laakiin ninku dhowr sano لا أفر لا تفرط يعانس كأنه ران كرا وعير ونحن نقول إنه سيقرح بنانا ونعتقد هذا دمني هذا بيجري عذر اسمع رتنا اسمع كيسان على هالجيل وحد لا راشينك والله غمر ما والله غمر ما ولي نكري هذا عطوش وريها وحلية بيو أمين لا هي أفر لما تنبض أما الصنط سيدا عانق الكريه لو وجهه كرو سما فاهمين لكن دتك هوري انت سراشين كان يا وحن يا بركن يا بلادن امان يسريدن waxay ku noolaayeen ku degnaayeen aana hilib kana inuu neef uu malkumo isaga yimaado mooyaan inta badan xooluhu bilaash looma qalin jirin soo fahmin in quraan la akhrinayo ama neef malkumood ku soo boodo ama muxuu ahaay qof ku yimaado aad u loogto oo yaani muxuu ahaay aad marti ku soorto mooyaane la iskama qali jirin halka Soomaalida qaar ay kuma maahaanba يا وحنا عانا هينبا عيرين واي خيركم ما هاجر أودي روالو وحنا عانا هينبا عيرين واي سما فاهمين يعني حلو كذا عانا هاس وحنا هينبا وعيرين وحي كاجا باهين أذكر صدف صارت تصالة أنا قلت شو هذه ما تقضى آد جاجك حاجة موقته أو آد دهلن أو رفادن أو باهن وحكونا ليه هذا إيه ما تي بدل كده بنتهشيدو أن عنتك كريتان كسوق hal baan ku soo gelinayaa dhiiro ku soo suurka ku soo darayayo ku dhiibaya dabeedna karitaanka aan baahna karitaankooda waa inta la lisay bas sugi marka waalo waxaan caanahayn bacayrin waayada waxay ula jeedaan qabaa'ilad kamid ah qabaa'ilada Soomaaliyeed kooda ugu weyn oo yaani muxuu ahaayay maamahda iyaga jideeyay baan uga mahad celinayaa yaani caanahaasi nin hadda kor waxa reemiya reer wuxuu ka sahamiyay geeliis buu ka tagay dabeedna maalin dhan buu soo socday maalin 24 saac uu sii socday 24 saac uu soo socday marka dadka horena way iska hunguri sameeyeen oo dad aad u hunguri sanbay iska ahayeen oo dad hunguri weyn oo wax walba damaaciyana maysan ahayn dabeedna waxa la yiri ninkii isagoo geeli u taga oo dhaxmaro oo kalaba war caana man ku soo liso iska dhaaf yiri geeliga shalay caana ka soo cabay shalay ban geeliga caana ka soo cabay iska dhaaf suu ulaha asoo gaajo naf loo garaawe yu geelisi habeenkii dambe ku soo hoyday moogta markuu ku soo hoyday qaalin igar ah بعدين لو سو غلي سولك halka afku leeyahay dhila ba loo soo daray suulka moogta oo loo dhiyay markuu caanihi jiiday si kale kuma garatide qurquriyay oo u dhargay ba wuxuu yiri intuu isku daray maasha geelayga geelasha ka jeclaaday yani maasha geelasha ka jeclaaday maasha tamanin ba geelisi geel la simi waxa kale Soomaaliya tiraahdaa geel way wada jirtaa wayna kala jirtaa taasi marka hoos baana geeliga maasha geelasha ka jeclaadayo haddaad geel la jirto geel daranya ah haddaan kugu darsado daranyadaasi xoolahaas way ka muuqan sida kaada u dhaqaalanayso ma dhaqaalaynaysid laakiin abaas kale marka hadda marka Catoosh wuxuu aamin leeyahay caana geel baa lagu noolaan karaa oo dadku maxay ku noolaayeen Soomaalidu maxay ku noolaan jirtay beero hadda la bartay bariiskan iyo saliidan iyo baastada iyo beeraha hadda la bartay qashinkan iyo burkan dadku maxay ku noolaan jireen nolol u ahaayo awowyaalkeen iyo aabayaalkeen ba haddaan idhaahno maxay ku noolaan ku soo joogi jireen reer dhan oo sidii u dhasheen ba aan dabkooda la saarin shahalo tirkiis mar dhow bilaawday aan dab shidan in xoolaba loo shido oo bah laga ilaalay mooyaan aan irsaaqada loo shidan ba jiraba
dabeedna markaas leedahay caanu ma lagu loonaan karaa wax kalaad ka dhigi war wax kale niyo hawshaas manaafacaadkaas mooyee caana inaad ka cabto mooyee ma gadataa geeli oo dhar iyo labis iyo wax ma ku xirataa mise waan gataa zaka ma ka bixisaan aad toos baan uga bixinaa 12 bilood markuu joogo neef baa laga bixin salaada say isku tihiin salaada waan tukanaa eega duhurkan kula tagnaa markaan tagnaa hadda masaajidkan way ma sha Allah dadka waxay aaminsan yihiin geeleyda dadka geeleyda ah ama xoolo dhaqatada ah inay yihiin dad jaahiliin ah oon diin ka warqabin oon waxba ka warqabin oon tukan oon salaadin oon saka bixin bay iyo moodayaan moogta ninka ciyaarsay wallaahi hadda wuxuu soo qaadanayaa al acraa'u ashadda kufran wa nifaaqan baa kusoo degtaa leeda laakiin ma oga awowgii inuu reebaadiye soo ahaa aabihii inuu reebaadiye soo ahaa awowgiisa ka reebaadiye soo ahaa hadduus abihi ahayn xitaana oo reebaadinimadu ay tahay wax lagu faanaba dhowrsanaanta oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi marka uu bato harajka waa dilka iyo dhibaatada iyo yacni muxuu ahaayey dembigu iyo zinada iyo balaayadu iyo cudurrada ay fara bataan oo dilka uu xadhaaf noqdo oo qabiilaysiga aanaysiga u bato ninka geel la geeliisa ha u cararo kii lo la loyisa ha u cararo kii ari la arigiisa ha u cararo oo baadiyaha la aada micnihi kii beer la beertiisa ha qoto magaalada laga cararaba fidmadeeda dhibkeeda mugto marka haddii maanta aan ku weydiiye marka reebaadiyaha ka waran ma tukada maad waa gaalo aayad quraan ka hadashaad dhihi ma fahamti marka dad muslimiin u gafaysaa ninkan waxaa leeyahay afar iyo yacni muxuu ahaa 12 bilood kadib baqaalin baan ka bixinaa ama neef baan ka bixinaa marka waa nin walba iyo iimaankiisa sida magaaladaba loo wada joogaa miyiga loo wada joogaa oo qof tukan baad arki qof muxuu ahaayey sakada bixin oo kaaga sii sakhisan baad arki qofkaa alla cabsi badan baad arki ma fahamti markaa ku degdegay reebaadiyuhu waa reer aan caadi ahayn way reebaadiyuhu inta badan geel jiraha waxaa la yidhahdaa cibaadada kuma fiicno waa lagu sheegaa haye laakiin hadda sidii maaha eega looga hor oomana jiri jiray geel wuxuu ku daahira qaato oo iskaga maydha kaadii nijaasta ma heli jirin hadda laakiin dhulkii biyogelin baa ka bilaabatay meel kastaan oo hal saac loo socdo biyaha laga gaaraya hadda duurka waan wada tukanayna marka caagadu dhaansan eega kaa gela sidooda u dhanka caagadu waa biyeysan ku weysaysan ma isdishaan geel jiraha waxaa la yidhahdaa caanaha geela waxaa laga qaadaa kuleyl iyo raganimo iyo gacan qaad xagga dilinka eega ku roon yahay raggu eega sidaa hore uga dhaamaa xagga dilinka isdili jiray ugu dhaamaa geel la kala dhacan hadda male tooridan maxaa ku qabata tooridan waxaa laga sameeyaa geela qodaxda waa lagaga bixiyaa qotaasamaad geela qodaxda waa lagaga bixiyaa oo markii geedku muddo hash ilaa naga bixi ma dhihi karta iyadoo dhutaysa aragto waad kaga saari hay kala qabataa imaad neefkii kale dhinta waad ku gowrac waa lagu qalan hilibkaa lagu cuni dee shaqo badan bay qabataa xalay xageed saacad xalay waxaan saxay xerada geela golaha geela meel golaha ardaa ah geela dhexdiisa ka go'an wax la dhiganaya miyaa jira kashkaash bahal caws oo dareema la dhaho ilaahay bixi adigana aad iyo aad caws dareema loo ilaahay bixiyey baad iga biiro kashkaasha ama shalol waxa u taqaanid soomaaligaas of soomaali naga weyn ama kaa weynba ma garad tooridana inta uu sheegay labadeed bay qabataa mar cadow iskaga difaaci mar neefka kaa xareer waad ku qali mar neef xarag isku marjiyaad kaga jari mar geed baad kaga bixin geela mar adii laftirkaaga iskaga bixini soo ma fahmin mar cadow iskaga difaaci gaashaan bay kuu tahay shaqa bomba oo markiis geel jira marka reebaadiyo toori dheer daas ka dhacdo wallaahi dawdo kaaga xareysan kale kuma garad waxa ma qoro geel jirooye bashaasha tahay saad iigu warrantay aad baan oga helay dabadhoonka hadda ma gaarnaa dabadhoonka hadda waan gaari karaa laakiin waynaga dulka eega kayn buu galay reer ma leeda adiga reer waan leeyahay carruurna waan leeyahay geel maad ka bixisay gabadhaada wuu ka bixiyey imisa neef 7 ma 7 neef oo geel ah waa gabar qiimo badan allah kuu barakeeyo aad baad u mahadsan eeg hadda gabdha geel laga bixiya ma jiraan iyo waddan hadda geel laga bixiya gabdha ma jirto iyo waa horay ahayd kasoo tag wiilkaasa wuxuu ku leeyahay 7 neef oo geel aan ka bixiyay gabadha aan qabo markaasuu leeyahay weliba gabar wanaagsan waa iyo sharaf leh awlaad bay haysaa buu leeyahay eeg hadda gabdhihii ma dhammaanin geel laga bixin jiray reer bootorow gabdhihiina wax isku yani muxuu ahaay asalaamu calaykum taa kuwaasa la hadlayaa eeg naturalkaaga da ahaan leed geel baa lagaa bixin lahaa adaa tiktok isdhigay iyo meelo kale iyo howlo kale iyo adoo qasqas iyo alaab isticmaalay baad iska dhigtay wax kale oo ina hebelba aan ahayn oo nooc kale ah idinkoo ciddiina ree hebel ree madoobe ree tuka hebel ree qadiidow ahaayeen baad noqotay caddaan socda gebigaago ma fahantay marka aad baad idin salaamaya muuqaalka xaraabada intaas nagu dhan yahay channelka subscribe saar sidoo kale asxaabta la wadaag muuqaalka mahadsanid